السلام الله عليكم kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan warbaahiya media qodobada ugu waaweyn aad ku daawan doontaan warka warbaahiya media waxa kamid ah ergeyga IGAD ee Soomaaliya oo kulamo caawa ka wada magaalada Kismaayo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo gaaray Hobyo saddex caruur oo adeerkood ku dilay gobolka Togdheer tirada dadkii ku dhintay weerarka Mareykanka oo korortay iyo dawladda Iiraan oo gacanta ku dhigtay markab siday shidaal markana ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan halka aad warka ka daawanaysaan warbaahiya media fadlan subscribe saar channelka warbaahiya media maanta waxa magaalada Kismaayo ee xarunta gumeel gaarka ee Jubbaland gaari wafdi ka socda urur goboleedka IGAD uu hogaaminayay wakiilka IGAD ee Soomaaliya Dr. Maxamed Guyow wafdigan oo ay garoonka ku soo dhaweeyeen qaar ka mid ah golaha fulinta ee Jubbaland ayaa caawa ku hoyanaya guriga martida ee magaalada Kismaayo wafdiga IGAD ayaa magaalada Kismaayo ku sugnaan doona muddo 3 maalmood ah iyagoo kulamo la qaadan doona guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashada Jubbaland odayaasha dhaqanka ee soo xulaya xildhibaanada baarlamaanka musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimo ee isdiiwaangeliyay ee qeybaha kale ee ururada bulshada Jubbaland wafdiga ayaa si rasmi ah ula socon doona habsami u socodka doorashada Jubbaland wafdi uu hogaaminayay Senator Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid ayaa galabta gaaray magaalada xeebta saaran ee Hobyo halkaas oo ay ku soo dhaweeyeen madax ka tirsan Galmudug iyo odayaal dhaqameed safarka wafdiga ayaa lagu sheegay inay ka qayb gali doonaan wajiga labaad ee shirka nabadda Hobyo oo la filayo inuu halkaasi ka furmo wafdiga ayaa waxaa sidoo kale ka mid ah xildhibaano ka mid ah golaha shacabka oo deegaan doorashadooda ay tahay Galmudug wararka laga helayo gobolka Togdheer ayaa waxay sheegayaan in deegaanka dhagax dheer oo ka tirsan gobolkaasi oo nin oday ah uu deegaankaasi ku dilay 3 caruur ah oo adeer u ahaa caruurta la dilay oo dhammaantood walaalo ahaa ayaa la sheegay inuu ugu weynaa 4 jir isla markaana isla goobtii lagu dilay ay ku geeriyoodeen sida ay sheegeen dadka ku sugan deegaanka dhagax dheer ee gobolka Togdheer gudoomiyaha deegaanka ayaa sheegay in caruurtaasi uu dilay adeerkood oo maskaxda looga jiro balse ciidamada booliska Soomaaliland ay gacanta ku hayaan ninka falka dilka ay geystay dadka ku nool deegaanka dhagax dheer ayaa maanta aad u hadalhaya dhacdadaas waxaan hoyga ay deganaayeen caruurta la dilay buuxdhaafiyay boqolaal ay ku jireen ehladooda oo dilkaasi ka naxay waxaana dhacdadaasi ahayd mid ku cusub deegaankaas mas'uuliyiinta laamaha kala duwan ee gobolka Togdheer wali kama hadlin kiiskaasi dilka ah hase yeeshee waxaa la filayaa inay ka hadlaan saacadaha soo socda ugu yaraan 29 qofood ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen 2 weerar oo kala duwan oo xalay ka dhacay gobolada Texas iyo Ohio ee dalka Mareykanka weerarkii hore ayaa ka dhacay magaalada El Paso ee gobolka Texas hadii markii wiil cadaan ah oo hubeysan uu rasaas ku furay dadka adeeganayay dukaanka Walmart oo kamid ah dukaanada ugu waaweyn Mareykanka taliyaha booliska ee magaalada El Paso Greg Allen ayaa sheegay in weerarkan ay u xireen wiil cadaan ah oo 22 jir ah warbaahinta Mareykanka ayaa sheegay in qof walba oo weerarkan looga shakiisan yahay inuu marayo baaritaan culus booliska ayaa helay qoraal oo ninkan ku daabacay baraha bulshada ka hor intuusan weerarka geysan kaas oo uu ku sheegay inuu bartilmaameedsan doono dadka Isbaaniga ah ee ka soo jeeda koonfurta Ameerika ciidamada booliska iyo kuwa dambi baarista ee FBI-da waxay maanta sheegeen inay bilaabeen baaritaan ku aadan sababaha ku kalifay inuu ninkan weerar qaado dhanka kalena saacado kadib markii uu dhacay weerarkii El Paso ee gobolka Texas qof hubeysan ayaa toogasho ka geystay magaalada Dayton ee gobolka Ohio halkaas uu ku dilay 10 qof halka isbitaal la dhigay 26 kale oo dhaawac ah dawladda Iiraan ayaa shaaca ka qaaday inay qabsatay markab shidaal sharci darro ah u siday qaar ka mid ah wadamada Carabeed xilli uu marayay gacanka dalka Cumaan warar laga baahiyay gudaha Iiraan ayaa sheegay in ciidamada gacanka ay qafaasheen markabkaas oo siday shidaal cadadiisu gaaray ilaa 700,000 oo litir waxayna intaasi ku dartay in 7 qofood oo shaqaale ka ah markabka la xiray talaabadan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo cirka isku sii shareerayso xasarada ka taagan gacanka Carabeed waad ku mahadsantahay daawashada ila socodka warkayga fadlan subscribe saar channelka warbaahiya media kadibna gambaleelka furo si fiidiyoo walba kugu soo dhaco mahadsanid